relatively civilized. They look like any European family. Christians, they're white. You know, this is a relatively civilized, relatively European, I have to choose those words carefully too, city where you wouldn't expect that or hope that it's going to happen. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rajaynaynaa caafimaad qabtaan meel walba adduunka ka joogtaan insha Allah tacaala waa fiidiyoweynii labaad waan jeclay inaan channelku bilaabo fiidiyo noocan ama mawduuc noocan ah laakiinse arrinta ku fursan weydiyaan jeclaysin wayna mawduucan si haysto oo mawduuc waqtigan hadda xaadirka khuseeyahay ayaan u go'aansaday in habal noqdo kii horeeyay walow ha ahaaday aan soo dhigo marka insha Allah tacaala mawduucan maanta ugu geli doonaa كل شيء عايش في بيتنا تلاقي حتى يوكرين ولا دجالة مثلا تلك الروشة فلسطين ولا دجالة في إسرائيل محايس كذا كل واحد كذا الوجيران إن شاء الله تعالى فيديو جرين نكون صار رح يدون مع يوجد ذا نسوق قاضني أنت عن المدير حاجة عن شعبين دوركم مقالة طاطم نسوق معكم إن شاء الله. Tens of thousands of people have tried to flee the city. There will be many more. People are hiding out in bomb shelters. But this isn't a place, with all due respect, you know, like Iraq or Afghanistan that has seen conflict raging for decades. You know, this is a relatively civilized, relatively European, I have to choose those words carefully too, city where you wouldn't expect that or hope that it's going to happen. Now the unthinkable has happened to them. And this is not a developing third world nation. This is Europe. waxaan u maleynayaa in ninkaas saxafiga iyo gabadhaas ay ilmaamsan yihiin inay dagaaladii adduunka ugu xumaay lagu hoobtay lagu babaaya ka dhaceen wadamada reer Yurub oo xilligaas ku awood sheeganayay xifaaltankoodii sida dagaalkii koowaad ee adduunka iyo kii labaad ee adduunka iyo xasuuq loo geystay Yahuudi Germany waxaa soo dhan geystay ilaa hadda ay ka wadaan Syria, Iraq, Afghanistan iyo wadamo badan oo aad u kala badan oo Afrika ka mid tahay haddana se laakiin maanta ay leeyihiin meeshan waa Yurub maaha dunida saddexaad ama wadamada soo hormaraya يعني سيدي أي وضع أي يوروب كنوا للملاك عن دقالك يستاهلين. وقت اللي بدو لي درك أفغانستان أيوة حتى الشيخ الفايز الكندري أو سما في الكويتية أو كوسو من وقت أفغانستان أي دقال كدول ضعي حقنا تذكر تمام ملاني في سور كيسة أو دقال كدول ضعي يعني واحد وحري حبس يعني سيد تقتضي المسلم وانا نقول ندى مع على يعني كتير يعني سووا متجهون مهيسمين ودجالمين يسووا شوقة أو ده على سما فرق يدو تري أي دجال كدول ضعي انت أصلا كهنا أنا وش بيدكش تاس أو حاجة هاي استراتيجية هيري روستي مالان تذكر يدلك أيضا كقش ربني بابيان هذا فلسطين محاكا قال يارنتن كل يوم وضعنا ريري وسيو كلمنيا ولا لهوجا ريري يوكرين وأنا قاعدين يسين وضمد ريري وورس دولة يوكرين دولة إنجليزكا وقالين ونفسهم موادين تودا ينتيك موادين تودا كريستان كينتيك كران دولة يوكرين سايو قرب استيغان ولا لهوجا ريري يوكرين وأنا بربر تقالوان أيني هنجيسيال عاوني ولا لهوجا دبعتيس لكن إذا مركز قديم وتاجن تي عاون تعدد أما ضل مسلمة إن عيتين العاون سائر جحيسو سيدي كل عليه غير سوريا أو دجنا ضل كمرايكن كا أيا وتجي ضل سوريا مركي يعني كسود وشيء روس كسود دولي سو قريب استياج دونا ونا دفاع عدل كيسة بس مرايكن كو كلا لابتين باسبور كي لجنا معدل كمرايكا لو نشاب بدي أرجع جحيسو taas waxay ku cadeynaysaa in marka aad taageerayso qadiyad ummad muslima aad noqonayso argagixiso balse marka aad taageerayso qadiyad reer Yurub ama reer galbeedka aad tahay nin haliyey geesi dadnimo leh xuquuq dadeed xuquuqaha oo xuquuqda bini'aadamka ka garanaya waayo wixii ku dhacay Maxamed Abu Tarika iyo Mas'uud Hussein marka ay taageereen qadiyadda Falastiin in lagu yiri muxuu ahaa kala saara كبدية سياسة بس ما أنت وده أغني وحكي السعودية عالم كين أي صعبة وقراعي سو فيفا هودي الكسبين وإلا هذا هي بارسا وإلا هذا هي واحد ولا يكسب إنجليزي الباتين ضمن ما بدك تشرده. These are not refugees from Syria. These are refugees from neighboring Ukraine. I mean that, quite frankly, is part of it. These are Christians, they're white. It's very emotional for me because I see European people with blue eyes and blonde hair being killed, children being killed every day with Putin's missiles. Diiwaanka reer Ukraine inay dhibaataysan yihiin si haddana iyaga wax sii dulmaayo oo Afrikaanka iyo Aasiyaanka iyadoo dagaalka socdo ayaa la cunsuriyeenayaa siiba Afrikaanka oo la dambaysiinaya lagana dhigayaa kuwa
kuwa u dambeeya ee Ukraine ka baxa sidii ayna bini aadan baahan waxan iyo yihiin de wax yaro Putin loogu talagalay inuu bashkiyaashiisa la dhaco waxayna sheeganayaan horumar iyo ilbaxnimo waxayna duleynayaan Islaam iyo Afrikaan iyagoo in jaalada ay tahay iyaga si xaqiiqda iska qarinaya ilbaxnimada bal horta waxaan doonaynaa ilbaxnimada waxaan u yaqaanaan baan soo eegno la tahay ilbaxnimada yaqaanaan. The writer, Daniel Hannan, said that these people, the Ukrainians, they're like us. They watch Netflix. They have Instagram accounts. They read uncensored newspaper, and then goes on to say that war is no longer something visited upon impoverished and remote population. ruuxantii waa wax lagu qoslo in ay ilbaxnimadu noqotay daawashada Netflix oo qoran walba ku jiro iyo isticmaalka iyo kulahaanshiyaha Instagram accounts oo ay og yihiin in sanadkiiba kumanaan daayira ay nafooga ku galaafato Instagram sida dumarka u badnaa hablaha yar dumarka waniyo de balintii aan Instagram accounts ku lahaynay inaad naga samaysta oo inaad Netflix naga daawado balan noqonayno ilbaxnimada iyo xadaariinta la sheegay inta dadka nimaado siin uu ognaay saaxada dagaalka waxa si weyn ugu hadamaya Yurub iyo Mareykan dhanna Ruushka iyo China oo dhan ah iyo Mareykan iyo xulafada reer Yurub oo dhan hadaba su'aasha la suudin waxay tahay markii Ruushku Syria gubayay Mareykan wuu shiilinay oo cid walba ka soo jeestay wuxuu ka dhigay argagixiso hadda maxay isbedelay saada maxay ugu sugaastaan soo ku heshiiska markii ay dhexdooda soo gasho waa walaal Kristaan ah oo ma ogola danahooga waan isku reer Yurub waan isku reer galbeed waan isku reer Kristaan waan isku cindacdaan waan isku dhablug balse markii iyaga arintu dhexdooda timaado ay caadi isku yihiin markaas maxay ku tusayeen markii iyaga dhexdooda lagu jiro ay yihiin walaal Kristaan oo cadaan iyo isku dala xagga innagana alla inoo ogolayn iska daa in walaalkaaga muslimka ee wadanka kale ayna taageerto oo hadda taageerto muslimo ku taageerto lagaba dhigay argagixiseen wada arkayno aaban lagu ogolayn inaad dalkii ku maamusho Islaam dalkii eeba lagu ogolayn in kula doonayo kuleyn diinteeda dalka la isku maamulo runtii xarajina in reer Yurub wujigooga dhabtaa ay intii ogeydna ay ogeyd intii kalena ay hadda arkayso waxayna tahay in aynu dhalinta Soomaaliyeed indhaha ay kala qaado kale mowduucaas waxaan ciwaanka uga dhigay Ukraine iyo Falastiin ay waxay tahay in balaan yani reer Yurub waxa ay yihiin iyo say reer Ukraine u barbartaageen iyo sida inaga leeyno hortaageen walaaladeenna ama in garab istaagno ama aynu wax u muujino aan xataa ifan iyagii laga dhigay argagixiso iyo argagixiso ahayn runtii kale wada arkina filaya intii caalamka wax ku faanto Suudaan Soomaaliyeed waxaan ku weenay balna indhaha kala qaadaan xaaladda caalamka iyo soo wax socdaan iyo isbeddelka siyaasadda. First off, Europe has been home to some of the worst wars and worst war crimes in human history. I mean, the Holocaust. So why this surprise that bad things are happening in Europe? And second, when they say, oh, civilized cities, and in another clip, well-dressed people, and this is not the third world, they really mean white people, don't they? The reason they seem to want us to care more about Ukraine, and we should care about Ukraine, but not because they're white Europeans. That shouldn't be the reason we care about Ukraine. موضوع الوضع ما نتكلم عليه خصوصية والبسيجار عن سير راحله رئيس مالان أما دلنت رئيس مالان إكستو دلنت كلام الصومالي وده خصوصي فيديو يعني كلا صاربة صور كنا عبد خيسان ومدن مسبح عبدي ومركب تري دلك مريكنكا waxaan agboodisa gabar cadaana mana garanay xilkeeda iyo waxay tahay imaha khusayaan kamana hadlay taas waxaan la hadlayaa dhalinta reer Soomaaliland waxa ma sadaysan adduunyada waxa la inoo keenay waa inaynu Ilaahay caabudno hadaba mar hadii aan nacbudu Allah tahay waa yahay qofka aad isku midqatiin isku luqadatiin isku dhaqankatiin isku namabdaatiin miyay qurxoon tahay in aad ka sarreysiiso gaal إلى القرآن الكريم كحكوا سورة إسراء آية 7 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات
ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. waxaanu karaameynay in nabi aadan hadaba qofkii ilaahay karaameeyay muxuu ahaa qofka ka qaaday karaamadii kala qaaday leh niyow ka indhaha buluuga Yurubiyankii waa muxuu ahaa uu ka sareeyaa muxuu ahaa karaamo sareeya kan waxa ma aha Yurubiyan Afrikaankani kaas Yurubiyanka indhaha buluuga dhimaystay ilaa kristaanka ahi qofka noocaas sameeyay adiguna ka sareysiinaysa ad walaalkaaga muslimka ah ee isku mabdaay isku diintii isku dhaqanka diintii isku afka aad ugu faahan yani muxuu ahaa runtiisii uu ognahay Facebook barihi dawid wixii haystay oo arkaynay sawirkaas iyo sidii wallahi waxyaalaha qaar marka arkay dhalinyaro waxay ku soo qoreen caption soo dhigayeen sawirka soo raacinay wallahi su'aalaha qaar waxay isweydiinayeen in qofka aqligiisa lagu gaaray damirkiisa halku ku maqay yaa miyuu adeegsanin talow kulli Yurub markay bayrna kuma daawanayo waxa taraamna maqs eegi waxa soo qortay waxa soo dhigtay qofka arkay walaalkaaga halka kala jooga ee Soomaaliga isku afkitinkaas aan ku fahmay Soomaa hadaba markaan xaqada wada hadlayno kulli cid lagu faanay cid lagu xumeynay waa iyaga mana qurux badna war labada dawladood wixii ka dhaxeeyay waxa isku haystaan mabda doontaan kala aaminsanaada laakiin si adigu inaad qof muxuu ahaa qofka shacabka ku nool xamar hadda reer Somaliland inaad adigu wax u qaadan waayo walaalka wixii dhacay adduunyada way ka dhaceen kii dambiga kale uu ka tagay labada mabda Allah kala haysto mabda waa dhibaato ma leh laakiin qofka inaad ku faqoodo halka inuu awooyiyo si geysteen dambi aakhirba qofna qof dambigiisa ma qaado marka waxaan rajaynayaa ballinta Soomaaliyeed in ayaguna bal aqli oo ka shaqeeyaan oo walaalkaaga dhabtiidu yahay iyo waxay ka dhaxay waxa labada dawladood iyo siyaasadooda isku haystaan yaan adiga ku yaadka ku dhex milmin ee garo halka adiga muxuu ahaa mabdaaga saxda iyo halkay tiinad raacdo waxaan jeclahay intaaynu kusoo gabagabeeyo mawduuca kale wax macquul ah afkaaraha ama hadallada kusoo gudbinayna wax kaga cuntamaan waxna kaga cuntan waayaan kale waa afkaarteeda shakhsiyadeed iyo waxaan aaminsanahay inaan waxa kale insha Allah waxaan ku fahantii waxaad ku tiga salaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh videoga like sar channelka subscribe de asxaabtaadana loo inta soo isla garanayde kada ciyaarta kii loo channelka qabta